بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. مدن وزير maanta oo taariikhdu tahay 25 bishii June sidaad adigu xoogaal u tahay in kormeerka ku wada jirnay waxa inoo soo gabagaboobay dugsigii dhexe oo runtii ahaa 22,000 iyo zaid si nabadgelyo ah ayuuna ku soo dhamaaday dalka oo dhan. ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. waxa kale wasiirkaaga mahadnaqayaa sidii xaqrasho la'aanta hay'adeed noola bilowday imtixaanka la imikana noo wado. wax dugsiga dhexe haba yaraatee wax qashqashaada ama dhibaatii kama dhicin. sidiisana imtixaanku waa sanadku ugu dhibaatada yaraa. waxaan waxa weeyii waa jiidashada uu iska leeyahay oo ardaydu waxbay doonayaan ka ilaaliyaan waxbuu doonayaa oo micnaheedu wixii baa isir diidiida waana iska caadifad yar buu leeyahay laakiin si wanaagsan runtii oo dadku wada dhagan nugul yihiin ayaa ma taqaanaa wuxuu dhaceen. waxaan rajaynaynaa ka kale ilaahay idankii inuu khamiista nabad inoogu soo dhamaado. ardaydana waxaan u sheegaynaa qoladii dhamaysatay guul baan u rajaynaynaa kuwan hadhayna guul baan u rajaynaynaa. waxaan leenahay waalidiintana waxa iyadana waajib ku ah waalidiinta maadaama carruurta inta ku soo tabcayseen inay qof yar intuu geed ka boodu tala ka booda in la soo waaniyo oo la soo taliyo waayo cadow ma jooga halkan imtixaanka laga qaadiyo waa macallimiintoodii jaamacaday bari u tagayeen waa madaxdii wasaaradda waa wasaaraddii waxbarashada waa ciidankoogii bilayska meesha wax cadowa oo ma taqaanaa ma jiro. ardayda qaar baa waxa weeye yar neers wada ahoo kuwana waa loo dejiyey. runtiina ma taqaanaa waxa aad u dhex socday oo sanadkan qayb weyn ka qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada runtii aan oran karo uu nooga dadaal badnaa sanadkan maanta ah xalka oo kalaas u tagay iskuul u tagayay. waan uga mahadnaqayaa wasiirkana iyo madaxda dhan wasaaradda wasiir ku-xigeenkii agaasimihii guud agaasimi waaxeedyadii waa la qaybiyey. burco kale agaasimihii guud baa noogu maqan wasiir ku-xigeenku qayb dhan oo iyaduna ka mid ah Hargeysa ayuu ku mashquulsan yahay isaga iyo group. marka sanadkan waxaan ka xafiis imtixaan ahaan anagoo ka mid ah wasaaradda haddana mas'uuliyaddii gaarka imtixaanaadka noo gaarka ahayd si aan weligeedna looga caawin buu wasiirku runtii nooga caawiyey oo ma taqaanaa noola shaqeeyey. taana waan ka mahadnaqayaa. waxa kaloo ka mahadnaqaya qolada saxaafadda si wanaagsan bay iyaguna runtii sanadkan noola shaqeeyeen. waxa weeye way saxaafaddu waxa weeye waa midida labada af laho markay doonaan dadka meesha doonaan bay kaga qabtaan. annaga laakiin si fiican bay noola shaqeeyeen runtii siday wax u jireen wax balaayo boonboonisna may sheegin. maalintii ugu horreysay waan ka codsanay imikana waxaan leenahay warar beena marmar iska dhaca waxa kamid ah warkii maalintii la lahaa macallin baa fooq laga soo tuuro kale waxa wax ka jiray ma jirin. macallin fooq laga soo tuuray ma jiro macallin la dilo ma jirin. waa ardayda macallintu weligood way mudnaa kalaasay ku dhex marmaan imtixaanka balaayo ma jirto balaayo looma yeedho ilaahay ma ku mahadinaynaa. laakiin de meel shaqo ka socoto isxaqaaqishay iyo isjugeyn sidana ardayga iyo macallinku markay hawsha imtixaanaadka lagu jiro waa de nerves baa iska imanaya oo waa wax la iska yaqaano. ardaydu marka dambe imtixaanku dhamaado waxaad arkaysaa macallinkay shalay eriyeen lahaay way noo tahay iyagoo la sawirka kula gal oo baad arkay hadana berito. marka wax waxaan u sheegay saxaafadda iyo cid walba ma jiraan wax ma taqaana ardayga iyo macallin cadaawad ka dhaxaysa ma jirto. dhaqanka wasaaradda waxbarashadana maaha. sanadana waxba isku soo yar wada beegmay oo tayeyntii baa wasiirku la kowsaday in tayeyntii waxbarashada aan imtixaanaadka kaga bilowdaa la yidhi tayadii baa iyagana ku yar cusbaatay oo imtixaanku ahaa habab yar oo nuu sameynay imtixaanaadkii waxba adu sagaaradii budka la kulanto kalun bay noqdeen. laakiin waa laga sii afeefto weliba iyaga sanadkan si aanan imtixaanaadka hore u samayn jirin oo ka wanaagsan oo ka jilicsan baan runtii u maamulay. ardayda waxaanu ka qaadi jiray form 1 form 2 form 3 form 4 laakiin sanadkan ardaydu maadaama ay ahaayeen qoladii corona waqtiga xanuunka la soo kulmay inta badan culayska waxaanu ku saarnay form 4 ko kaliya xasuusnaayeen. runtii markaa aniga wasiirkuna maanta waanu soo wada marnay badidooda shalay waanu soo wada marnay wax maanta dhibaata mudane wasiiro ribooda saynu ka wada haynaa labadeenuba ma jiro dalka. imika waxay la hadlaysay badan baa laygala hadlayay si ugu wanaagsan arrin buu ku soo dhamaaday imtixaankii dugsiga dhexe kii kale oo ku socda. marka wixii waana iyo wixii awaamira iyo wixii talaa waxaan ku wareejin doonaa wasiirka. laakiin waxaan ugu bishaareynaya qaranka Soomaaliland oo min arday ilaa waalid ilaa madaxweyne
nin kastoo jecel Somaliland inuu imtixaankii Somaliland dugsiyada dhexe noo soo dhamaaday intii ugu badnayd inta inoo hadhayna 2 cisho inoo hadhay 2 cisho Ilaahay waxaan ka baryaynaa in ma taqaan sida ugu fiican noogu dhamaado ardayda secondary-ga waxaan leeyahay 2 cisho u hadhay sideedaba waxaan u dagaalamaysaa hadduu yahay mustaqbalkaagu doo warqada imtixaanaadka marka kul hadaba wax walba laga ogolaaday oo aanu nidhi ma taqaan sida ugu degan ha loola macaamilo adigu hadaba ma taqaan adigu sidii maroodiga ha raateen ma taqaan gorofka adiguna wax laga rabaa dadaal arday waayo waxa 12 sano u soo rafaadaysay inaad maanta kaliya laad ku kicisa maaha anagu wasaarad ahaan iyo xafiis imtixaan ahaan waanu tashanay waxaan ku tashanay khayr inaanu leedin caawiyo sida ugu wanaagsan leedina maamulo runtii wasiirku inuu nagu soo kordhiyay waanu qaadanay marka idinku xaqiina waxa leedin ka rabaa inaad amniga dhowrto waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan bulshooyinka Somaliland gaar ahaan ubadka maanta imtixaanka galaya oo maanta ay si habsami leh noogu soo dhamaaday imtixaankii dugsiyada hoose dhexe fasalada sideed ay galayeen ay u gudbayeen iskuulada dugsiga sare oo maanta si nabadgelyo noogu soo dhamaaday dalkoo dhan soo xidhmay runtii aad baan ugu mahadnaqayaa maamulayaasha wax soo baray iyaga ardayda iyo waalidkoodiiba soo dadaalay waxa maanta noo haray 2 cisho oo maanta soo dhamaanaya isaguna gabagaba hadda ku dhow saacada aan joogno maalintii afraad ee imtixaanka dugsiga sare waxaa noo haray 2 cisho oo Ilaahay rajeynay 2 cisho si nabadgelyo noogu dhameeyo waxaan aad u bogaadinayaa jaamacadaha qaranka oo runtii ka qayb qaadanaya ilaalinta imtixaanka iyo kormeerka oo runtii si fiican u hogaamiyay intii imtixaamadaas ay socdeen sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa ciidanka booliska qaranka oo runtii nabadgelyada aad u sugay halkan waxaan mar saddexaad u digayaa dhalinyarada iyo ardada imtixaanka galaysa qaarkood laga yaabo markay arkaan inaan maanta qish jirin inay culays badan dareemaan ama ay khalkhal keenaan waxa weeyaan dalku sharci buu leeyahay sharciga uu leeyahay baa lagu wada dhaqmayaa qofka dambiile ah gacan wax ka geysta hanti bili aadan baabi'iya ama gaadiid ha noqoto qofka naf bili aadan dhibaato gaarsiiya dhammaan tallaabo sharciya baa laga qaadi doonaa loogu naxariisan maayo looguna jixin maayo waxa weeyaan dhibaato kumeynu heshiin waxaynu ku heshiinay dalka inaynu nabadgelyo ku horumarino haddaad tabasho qabto adeer oo waalid oo aabbo anaga diyaar ku noo kaalay haddii kale waxa weeye sidaada imtixaankaaga ku gal kuna hungoobi maysid oo ku badbaadi doontaa ilaahay idinkii waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa hoggaanka nabadgelyada gobolada dhanba inay dadaalkan la sii wadaan inta aan ka gaadhayno dhammaadka imtixaanka maalinta khamiista ah